السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سيتهين في عنتهين ما أنتو حاسلا أركينا سيدا أكرني هيدب كان قروح دبدن هلا سو دوادو هل كان waxaan kusoo shubanaynaa caraftii ugu talagalnay inaan hilibka ku darsano koo meeshaan waxaan soo qaadanaynaa caleentaas waa caleenta bariiska lagu kariyo af Soomaali ku garanayo wax la dhaho iso sheega insha Allah kadib waxaa kala soo qaadanaynaa toon 6 xabo oo xabadaas aan ku soo darsaday kadib waxaan kala soo qaatay sanjabiil weyn oo ayadana cadcad yar u soo jarjaray waxaan kala ku soo darayaa daaniyo ayadana aan yariis u soo jarjaray marka waxaan rabaa waxa soo dhan inaan isku soo shiido kadib markaan saas diyaar uga soo dhigo waxaan kala ku soo darsanaynaa saliid kuma badinayno waxaan rabnaa wax yar dhakruur yar adag inay ka dhigdo saliid waxaan ku darayaa xoogaha yar waxaan kala ku soo darayaa biyo markaas kadib mashiinta gelinaynaa waxaan rabnaa si qurux badan inay ku soo baxdo way si fiican u shiidmata cabaara mashiinta u deynaya hadda markaan sidaas mashiinta u geliyay kalarkeeda waa cadaan waxaan rabaa kalarkeeda inay cagaar noqoto cagaar dhakruur oo daaniyada kalarkeeda uu ka bato marka meeshaan waa isla arkeena sida quruxda badan oo loo karin doono waa kana cagaarkaan rabay cagaarkaas quruxda badan oo kusoo bixi lagama sheekeyn karo marka haddadan waa diyaar waa laga soo diminayaa weelkan ugu talagalay inaan kusoo shubayaa kaasa sidaas dhakruurku kusoo baxay carafta kaaga daran maasha Allah cuntada lagu kariyo waxaan ku dhahay lagama foqaayo marka haddadan waa diyaar xigna waxaan rabaa inaan bariis ku karsado xig kalena waxaan rabaa inaan hilibka ku darsado waliba inta u badan waa kana marka hilibkeena sidaan quruxda badan uu eegyahay rabaa hilibka soo dooranaysid inuu hilib jilicsan yahay hilib qaar waxaa jira duqoobe midkaas oo kala dhaqsama karo marka hadda midkaan markuu sidaan u eegyahay hadda saas uu jilicsan yahay ovenka marka gelisid waqti badan kaama qaadanayo ama hadaa rabtid xataa inaad dabka ku karsatid markaas soo gadanaysid waa inaad iska fiirisid marka hadda sidaan waa diyaar waa kana hadda waxaan soo qaadanaynaa daaniyadeena cusbada yaan ka iloobo cusbaan ku soo daray haddana way ila ahaan weyse inaan weelkan ku geliyo ovenka foornada maadaama uu yar yahay cariiri ama noqdaana isiri oo weel ka fidsana ka fiican marka weelkan weynaan soo qaatay waa kana hadda sidaan u soo mariyay saliidi asagayaan soo saarayaa marka hadda xilligan aan saan u diyaarinayo qiyaastii adiga waa 7 saac bar marka isla markii inaan ovenka geliyo ma rabo waxaan rabaa caraftii waxa dhan markaa mariyo inaan cabaar meel u daayo oo saacad camal waxaas isdhex galaan rabaa waa kana marka aan daaniyadii wixii dhan ku soo daraayo quruxda waxaan ku dhahay wixii dhan cagaar isleeyihiin carafta adduunka oo dhan markaan saan ayada ugu soo darsay fiican isugu dhex walaaqaya maadaama aan rabo inay salka ka gasho hadaa rabta xataa maalinka habeenkii oo kale intaad marsato oo aluminum ku xirto fridge waa gelin kartaa markaas lafta iyo dhuuxa intuu ka galo subaxina aan foornada gelisidaan ku dhahay lagama sheekeyn karaan laakiin isla subaxaas aan karinayay isla maalintaas aan karinayay qadada ka rabay baan dalbado la ii keenay marka waxaan kala ku soo darayaa soya sauce dhadhankiisa yar raqay waaye marka waxaan rabaa inuu dhadhankaas dhanaana u yeelo labada kalar cagaarka iyo kalarkaas kale marka isdhex galiyeen qurux waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo marka hadda meeshaan waan daboolayaa meelaan soo dhigayaa saacad kadib aan ovenka gelinayaa marka hadda waa kana isagoo ovenka nooga soo baxay wuxuu ku jiray 2 saacadood iyo bar hilibka qaar wuxuu qaataa 4 saacadood qaar 3 saacadood qaar 3 saac bar waxay ku xiran tahay hilibkaaga siduu u jilicsan yahay marka waa kana hadda sidaan quruxda badan ku soo baxan ku dhahay lagama sheekeyn karo maasha Allah saas uu kala daadanaya Allahumma baarik hilibka biyaha lagu saaro dabka la saaray kana ka fiican oo ovenka inta gelisay adigan shaqadaada iska qabsanaysaa marka waa kana caraftii oo dhan ku soo daraa meeshaan waa 3 barbarooni oo kala nooc basal baar iyo daaniyo ku soo daray hilibkii dhan markii waxa soo kalar lagu darso isku bedel hal mar kalarkiisa day qurux ku soo bixi maasha Allah carafta kaaga darnaan ku dhahay lagama sheekeyn karo marka la soo tijaabiyo hilibkan waa jeclaanaysiin aan ku dhahay dab dambe hilib lama saaray foornada la gelinaysin 24/7 marka hadda waa kana waxaan ku yeelay lagama sheekeyn karo la soo tijaabiyo sidoo noqdo ila soo wadaago hadda marka waa kana wili waa si kala bixinaya sawiraanba ka diirna ahaba quruxdiisii marka hadda xilligan waxaan geliyay 8 saac adiga waxaan ka soo bixiyay 12 u maleena hadda marka waa kana waa diyaar weelkiisan ku soo shubanayaa
marka hala soo sidiisa marka isaga soo xiraya maadaama oo saacadii bar camal uu afurki ka haray inuu iga qaboobo ma rabo aan dabka haddana ku celiyo. marka waa kana kuleysidiisaan kusoo shubaya, kuleysidiisaan usoo dhuujinaya. anigana howlahaygii kale iyo afurkii kale oo ii dhinaa baan soo dhammaystiranaya maadaama idinkan idiin soo duubin shalay wixii kale aan karsanay. wixii kale aan karsaday bariis uu ahaa, bariisna maalin hore aan soo geliyay iyo mandaasi iyo sambuus. marka waxaan dhahay muhiimada bal maanta waxaa saartaa hilibkan aa foornada ku karisay, asxaabtaada ha kula arkaan siday u arkaan iyo si usoo tijaabiyaan ha kula soo wadaagaan biidnillaah. videogeena halkaasuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fii amaanillaah. باي.